ilaahay ayaa ku mahadsan alxamdulillaah allaan ugu mahadinaynaa naga guulsiya cadowga imtixaanaadkii aan mataqaanaa kala kulanay cadowguna uu ilaahay naga guuleeyay si guul ahna noogu dhamaatay sidaas hadda u jeedaan waxaan joogaa waa goobihii saakal isku farasaaray goob ka mid ah gaar ahaan soonkii mataqaanaa xabadda adag ee ka dhacday mid ka mid ah mataqaanaa soona mataqaanaa jicibow ilaa mataqaanaa beerayabaal ilaa soona iyo sooman xaqiiqdii cadowga wuxuu isku daygii ugu dambeeyey uu ku soo qaaday gobolka hiiraan wuxuu muddadii ugu dambeeyey uu soo aroorinayay ciidamo oo mataqaanaa cadowga wuxuu ka keenay jubbada hoose jubbada dhaxa gada baa iyo bakool shabeellada hoose shabeellada dhaxa galguduud iyo mudug intaasba cadowga wuxuu ka soo daabulay ciidan aad u xoogan xaqiiqda ujeedadooduna waxay ahaayeen inay sida iyaga qorsheysadana waxay ahaayeen inay baaba'shaan dadka deegaanka iyo ciidanka qalabka sida ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin sidaas ma uusan dhihin sidaas si ka duwan ayuu ilaahay xukunka u soo saaray saaka waxay soo weerareen sooman waxay soo weerareen soona jicibow oo iyakana ay doontii iyo meesha ay godan ku ahaayeen mar kale ay mataqaanaa fursad u heleen isku soo wada duuduub cadowga dhammaan goobihii lagula dagaalay waa lagu guulaystay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay gaar ahaan reer Hiiraan qalbiyadana way noo qaboobanayeen cadowguna waa ka nimir herna waa ka guulaysanay sidaan shalay ugu guulaysanaa maantana ugu guulaysanay waana ka guulaysan doonaa waxaan rabaa inaan baaq u diro halkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha mudane madaxweyne dalka waxaad gelisay xaalad dagaal waxaad cilaamisay inuu dalkan uu ku jiro dagaal reer Hiiraanna dagaal ay ku jiraan oo ay ku badbaadinayaan naftooda iyo maalkooda maanta gabadha reer Hiiraan iyo wiilka reer Hiiraan dhamaantooda wada takanaysan yihiin waxaan ka go'an inay cadowgaas iska dhacshaan laakiin waxa la yaab ah oo cajiib ah in inta aan sheegay gobol oo cadowgu ka soo gurmaday in maanta intaas goobooda fariisimo ciidamada qalabka sidee ku leeyihiin dhul Soomaaliyeed uu yahay system dawladnimo uu ka jiro maamul goboleed ay ka jiraan maamul degmooyin ee heer gobol ay ka jiraan intaasna uu cadowguna uu soo dhaxmarayo oo cadowguna uu caadi inuu soo dhaxmaro dhaawacuna uu marsiisanayo dhimashada meedkooduna uu marsiisanayo gurmadkooduna uu soo maray gobolkan Hiiraan dagaalka muddo 4 bilood ah ayuu dagaalka ku jiraa wiilkii qoriga ka soo qaatay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ka soo qaatay oo maantana iyo Sooman ku dagaalamayo oo jicbo ku dagaalamayo oo maxaasku muqokuru Sooneeda ku dagaalamayo 4 bilood iyo 5 biloodna dagaal uu ku jiro waa qiyaasi kartiin halkaas juhdiga iyo dadaalka galay halkaas warka aan sheegayno ma aha war aan ugu tala galnay dacayaad mana aha war aan ugu tala galnay inaan miidiyaha u marin waa war fadhiyo sax oo xaqiiq ah waxa hadda aan idin kala soo hadlayno oo sargaaladan garbaheega taagan ninkii yaqaanee waa furmihii dagaalka colalka lagu hogaaminayay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowgu wuu jabay waan laga guulaystay saakina mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ayaa far weyn loogu dhigay xeelada dagaalka wayna ka shalaayeen shalaayadada ay saaka shalaayeen hore u shalaayeen wayna sii wadi doonaan insha Allah taala dadkeygana guul baan u rajaynayaa meel walba ay joogaan Soomaaliya ha guulaysato